calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay calansida media xog xasaasi ah ciidamo isku dayaya in ay joojiyaan doorashada lagu qaban rabo ceelwaaq isla markaasina filla Soomaaliya ayaa diyaarinaysa ciidamadii Gedo in halkaasi loo diro ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan gobolka Gedo ayaa qorsheynaya inay tagaan magaalada ceelwaaq oo la filayo inay ka dhacdo doorashada 16 kursi oo kamid ah golaha shacabka sida ay ila wareegyo ka tirsan filla Soomaaliya u sheegeen warbaahinta ciidamadan ayaa sida la sheegay isku dayaya in ay joojiyaan doorashada halkaas ka dhacaysa ee uu wada maamulka Jubbaland kadib markii laga soo wareejiyay Garbaharey balse ma cadda sida ay ugu guuleysan doonaan ceelwaaq ayaa ku taalla xuduudda Soomaaliya iyo Kenya waxaana la filayaa in amniga doorashada halkaasi ay sugaan ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM sida xog hoose loo helay gobolka Gedo ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya ciidamo daabacsan madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo oo isugu jira xooga dalka Soomaaliya iyo nisa gaar ahaan qaybta Duufaan waana mid kamid ahi sababaha maamulka Jubbaland u diiday inuu doorasho ku qabto Garbaharey doorashada gobolka Gedo ayaa muddo ahayd xudunta khilaafaadka keenay dib u dhaca sanadka ka badan ee doorashada Soomaaliya ayada oo ay isku hayeen madaxweynihii hore Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo hadda u muuqda inuu loolankaasi ku guuleystay haddii aanu dhicin isbedel kale oo degdeg ahi dhinaca kale waxaa hadda socda qorshe lagu qabanayo doorashada Garbaharey sida ay sheegeen gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Bulle Garaad oo ku adkaystay in meel aan Garbaharey ahayn aysan doorashadaasi ka dhici karin aniga waxaan rabaa ninka ragga ahi ee ceelwaaq doorasho ku qabanaya annagu sharci baan qabaan u nahay sharciga haddii lagu xadgudbane cid aan qabaan u nahay ma jirto doorashadeena waan qabsanaynaa iyadoo xor iyo xalaal ahi ayaana qabsanaynaa cid aan magan uga nahay ma lahan ayuu yiri Bulle Garaad si kastaba ha ahaatee ciidamadii Gedo in muddo ahi lagu daldalay jiray ayaa iminka waxa ay doonayaan in ay weerar xooggan ku qaadaan ceelwaaq dhinaca kale guddiga doorashada ee guddoonka baarlamaanka Soomaaliya oo habeelad loo xulayo kadib maanta kulankii ka dhacay golaha federaalka Soomaaliya kala fadhiga koobaad kulankiisa koobaad ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu furmay magaalada Muqdisho kaas oo shir gudoominayay Cabdisalaan Axmed Liibaan dhabanacad oo ah gudoomiye ku meel gaar ahi ugu horeyntii waxaa kulanka lagu dhaariyay ilaa 6 mudane oo ka maqnaa munaasabada dhaarinta ee khamiistii lagu qabtay teendhada afisyoone ee xerada xalane gudoomiyaha ku meel gaarka ahi oo madasha khudbad ka jeediyay ayaa marka hore ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka iyo shaqada hortaala baarlamaanka cusub waxaad wada ogtihiin saaxiibayaal xaaladda dalkeena uu ku sugan yahay maanta iyo cadaadiska uu adduunka inagu hayo oo nala leeyahay haddaadan waqtigaasi wax lagu dhammaynin wax walba waa xirmayaan ayuu yiri xildhibaan Cabdisalaam Dhabanacad sidoo kale wuxuu intaasi ku daray waxa istaagay tiirkii dawladnimada laga bilaabay waxa dhimana waxa aan ku kalsoonahay inaan dhameystiri doono gudoomiyaha ku meel gaarka ah hadalkiisa sii wata ayaa xusay in laga rabo ka baarlamaan ahaan inay dadajiyaan dhameystirka doorashada si looga faa'iideysto waqtiga la haysto intaas kadib ayuu gudoomiyaha ku meel gaarka ah soo jeediyay inuu dhiso guddiga doorashada ee guddoonka baarlamaanka balse waxa diiday xildhibaanada iyadoo kadib codeyn loo qaaday xildhibaanada ayaa isku raacay in xubnahaasi loo qaybsado habbeeleed si loogu saleeyo nidaamka 4.5 ee ay wax ku qabsadaan beelaha Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya oo kulankiisii ugu horeeyay ku bilowday diidmo ayaa waxaa hor yaala shaqada adag oo ay ugu muhiimsan tahay doorashada soo socota ee madaxweynaha dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii Rooble iyo guddoonka cusub ee labada aqal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa kulan gaar ah kula yeeshay labada gudoomiye ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya Rooble ayaa gudoomiyaasha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ee aqalka sare ee baarlamaanka cusub wuxuu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa dhameystirka doorashooyinka waxaa hadda la guda galay ka shaqeynta qorshaha qabsashada doorashada gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka maadaama Dhabanacad iyo Gaagaaba ay yihiin laba kusime ilaa iyo inta laga dooranayo laba gudoomiye oo sax ahi labada aqal ayaa ku kala shiraya xarumahooda waxaana lagu wadaa inay kulamadooda diiradda ku saaraan arrimaha ku xeeran qabsoomidda doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya Sheekh Shariif oo dhaqaale la'aan awgeed uga hari doono tartanka xildhibaannimo ee magaalada Jowhar sidoo kale faahfaahin dagaal xoogan oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Bay wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya aan ku horeeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa laga yaabaa inuu ka haro tartanka doorashada kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa kaas oo in muddo ah ololihiisa ugu jiray
madaxweyne cali guudlaabe xuseen oo cabsi ka qaba in sheekh shariif looga adkaado doorashada kursiga beeshiisa ayaa go'aansaday in uu kursigaani u xidho sheekh shariif laakiin cali guudlaabe ayaa u sheegay sheekh shariif in uusan isagu damaanad qaadi karin in kursiga uu qaato sheekh shariif kursiga beel ayaa iska leh in beesha la qanciyo ma ahan mid aniga ii taallo taasna waxa ay u baahan tahay dhaqaale iyo kala furfurid arrintaasi aniga eedda ma qaadi karo ee shiikha ayaa laga rabaa in uu iska soo xalliyo sidaas waxaa yidhi cali guudlaabe oo la hadlayay qaar ka mid ahay odayaasha dhaqanka ee beesha agoonyar waxa uu intaasi ku daray kursiga waxa aan kor u hayn karaa oo keliya 5 maalin oo maanta ka bilaabanayso shiikha waa la hadlay in uu degdeg u yimaado magaalada jawhar laakiin sababo aan fahmi waayay ayuu jawhar uga dhuumanaya ayuu yidhi sheekh shariif oo dhaqaale xumo la soo daristay ayaa ka leexleexanaya in uu doonto kursiga xildhibaannimo ee uu in muddo ahi ololihiisa ugu jiray si uu kursigaasi u helo waxa uu ku qasban yahay in uu dhaqaale badan ku bixiyo si beeshiisa si buuxda ugu ogolaato in uu kursigaani isaga qaato beelihii xaqa u lahaa dhaqaale lagu qanciyo xogta ay hesho warbaahinta ayaa sheegaysa in laga yaabo in sheekh shariif uu ka haro tartanka doorashada xildhibaannimo ee loo asteeyey beeshiisa isaga oo ilaashanaya sharafkiisa dhinaca kale waxaa magaalada muqdisho ka dhacay shir aayatashi ah oo ay isugu yimaadeen ugaasyada odayaal dhaqameedka iyo waxgaradka dir digil iyo mirifle iyo sidoo kale beesha shanaad kaasi oo looga hadlayay xaaladda dalka shirkani ayaa waxaa si gaar ahay looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka oo maraya heer gabagaba ahay kadib markii uu guddiga fiid daraad dhaqan geliyey jadwalka dhaarinta xildhibaanada cusub war-saxaafadeed ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa meesha looga saaray cabsida ku aadan in shirka dir digil iyo mirifle uu dan gaar ahi ka leeyahay madaxweynihii mudaxileedkiisa dhammaaday farmaajo sidoo kale waxay caddeeyeen in shirkooda uu ku saabsan yahay aayatashigooda gaarka ahi islamarkaasina aysan meesha oolin dagaal kala dhexeeya beelweynta hawiye dadkaani cid ma soo abaabulin oo ayaga ayaa dantooda iyo midda dalka isu xilqaamay waa waxba kama jiraan in aan abaabulayno dagaal ka dhan ah beelweynta hawiye ayaa lagu yidhi ugu dambayntiina waxay sheegeen inay u midoobeen danta ummadda soomaaliyeed oo aysan jirin cid si gaar ahay u taageersan yihiin ama u necab yihiin ayna ka shaqaynayaan soomaali horumarkeeda si kastaba ha ahaatee shirkani oo jawaab u ahaa beelweynta hawiye oo maalmihii lasoo dhaafay ku shiraya magaalada muqdisho dhinaca kale warar dheeraad ahi ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaanka owdiinle oo ka tirsan gobolka bay ku dhex maray ciidamada etoobiya ee ka tirsan howlgalka admis ee loo aqoon jiray amisom iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada etoobiya waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in intii dagaal ku socday ay ciidamada etoobiya adeegsadeen madaafiic dhowr ahi taas oo uu ka dhashay khasaaro dhaawac ahi oo gaaraya dad rayid ahi wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in xaaladda deegaanka owdiinla ay degan tahay islamarkaasina goobtii lagu dagaalamay ay ku sugan yihiin ciidamada etoobiya kuwaasi oo mararka qaar howlgal samaynaya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka